markana waxaan u yeeri doonaa Faaruq Cabdiraxmaan Xaaji ku soo dhawow insha Allah waqtigana aynu ilaalino hadii Allah idmo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن عاوة وحبدن بالدين شيء سي شخصية سي جود تصالوين وحن ربع نقول إن وحير عن دتكو استيميو كلي تليها يقابك ورقمه دت بدن بحلقة عبا إن إسلحان كلي تليه مجرو هذا لكن كلي تلينمادو waa wax dhisma in lagu dagmana ma aha intuu awood yar yahay waxa uu qiimo badnaa wax kaligi taliska si fiican uga hadlay sheekh qarni ka hor noolaa oo la oran jiray Dr. Cabdiraxmaan Al-Kawaakibi Allahu naxariistee kitaab uu ka qoray la yiraahdo Tabaayucul Istibdaad ama dabeecadaha kaligi taliyaha kitaabkaas qaybo kamid ah hadaan ka soo qaato shacabka uu ka hadlay musuqa uu ka hadlay dilaalayda siyaasadeedna uu ka hadlay sidii kaligi taliska la isaga qaban lahaa ama looga hortagi lahaana uu ka hadlay shacabka wuxuu yiri waa kuwa markayna aqoon lahayn cabsada markay cabsadaanna isdhiiba sidoo kale waa kuwa markay wax bartaan hadla markay hadlaanna ficil ku dara kaligi taliska awoodu ku xisaabtamo waa shacabkaas u dhahay ayaga ayuu qafaashaa markaasay ku farxaan awoodiisa xooluhu ka dhacaa markaasay ugu mahadnaqaan inuu nafta u daayay ma maqasheen hadii in la dhaho war maxaa wax noo weydiisanaysaan idinma bedilnee wuxuu sheekhu fi raaciyo ayaga dhexdooda ayuu isku diraa markaasay dhahan siyaasad buu leeyahay waa nin wax isku dira xoolahooda ku takrifuraa markaasay waxay dhahayaan waa deeqsi waa xoolihii ayaga ay lahaayeen wuxuu sheegay in xataa mararka qaar hadduu wax dilo ay dhahaan ugu yaraan ninkan dadka meydkooda sarwaji kama sameeyo maxaa ka dhalanaysa marka natiijada ka dhalanaysa wuxuu yiri caamadu ama shacabkaas guud ayaga gacantooda isku gowracaya cabsida ka dhalatay aqoon la'aanta iyo doqonnimadooda darteed hadii aqoon la'aantu meesha ka baxdo aqligana uu iftiimo xaqooday raadsanayaan sababtoo ah ninka caaqilka ah naftiisu u shaqeeyaa naf kale uma shaqeynayo kaligi taliye xoolihiisa dhacaya laakiin wuxuu raadinayaa xuquuqdiisa iyo xuquuqda walaaladiisa wuxuu ka hadlay dilaalayda siyaasadeed wuxuu yiri kaligi taliye wuxuu sameystaa kuwa uu ku sharfo oo dilaalay ah oo qandaraasyo siiyo wuxuu yiri kuwaas ku marin habaabiya magac diin u eg ama wadan jacayl wuxuu yiri erayadu isticmaalo waxa laga yaabaa erayo qurux badan inay noqdaan ama kuwa dilaalayda inay sawir fiican ka bixiyaan laakiin waa nin baabi'inaya ummadda waxay ku taagneed wuxuu ka hadlay samata bixinta ama sida looga samata baxayo kaligi taliska wuxuu yiri kaligi taliyuhu hadduu arki lahaa dadka shacabkiisa oo gacanta bir ku haysta waxyaabo badan ulamuna tageen laakiin markuu ka aamin noqday dhinacooda oo uu ku seexday inaysan waxba yeelaynin buu wuxuu raba ka sameeyay wuxuu yiri xukuumad cadaalad ah iska daata xun xukuumad cadaalad ah haday nabad ka hesho shacabka oo ay dareento shacabku inuu la xisaabtamaynin waxay talaabo u qaadaa kali talinimo markay kaligi talinimada kolba say wax ugu daraysana laba shay bay adeegsataa waa jahliga ummadda iyo askar musuqu ka hadlay wuxuu sheegay in wadamada horumaray dadku aynayna xoolo badan raadin ruuxu shaqo iyo nolol fiican buu raadsadaa laakiin wadamada kaligi talis ku jiro ruuxu maadaama uu damaanad nololeed haysanin
wuxuu ku dadaalayaa wax alla wuxuu indhaha saaraba inuu boobo. ugu dambeyn 8 qodob buu sheegay keligii taliyaha in ay sababto dadku inay hal mar qarxaan. 8 caaw si fiican u dhageysta imise ayaa ku sifowday keligii taliska ka jira wadankeena. wuxuu yiri qodob koowaad waa keligii taliyaha inuu dhiig faraha la galo oo shacab badan laayo. taa waxay keenaysaa dadku inay gadoodaan. 2 waa inuu keligii taliyaha intuu dagaal galu dhahay uu ku soo jabaa dagaalkaas mas'uuliyadda dagaalkan uu saraakiil u saari karin. waa la socotaan canfarta wixii ka dhacay. wiilal baa la geeyay waa lagu soo jabay. 3 wuxuu dhahay inuu ninka keligii taliyaha ummadda diinteeda oo ah waxa ugu sareeya inuu ku jeesjeeso ama ku xadgudbo. dadka muslimiinta ama aqbalayaan diintooda in mataqaana lagu jeesjeeso. 4 wuxuu dhahay dadka in dhaqaale ahaan nolosha lagu ciriiriyo. 5 inay dhacdo gaajo ama masiibo weyn dadkuna aysan ka dareemin inaba wax u diirnixid ah ninka keligii taliyaha. hadda ma jirtaa inay abaar dadka ku dhacday oo aynan maamulku ka helin dadka wax diirnixid ah. 6 wuxuu dhahay dadka wax dhaqan u ah inuu ku xadgudbo keligii taliyuhu. 7 wuxuu dhahay in uu dadka ciriirigu uu ku wada ay sababto inay gabdhuhu soo baxaan. sababtoo ah gabdhaha markay soo baxaan waa meeshii u dambeysay raggu waa inay ka dagaalamaan. may dhacday in gabdho guryo loogu dhacay. ugu dambeyn qodobka ugu muhiimsan oo qodobka 8 wuxuu yiri in keligii taliyuhu uu muujiyo jacayl xad dhaaf ah in uu qabo cadowga ummadda. waxyaabaha aad aan ula yaabo waxaa ka mid ah dad baa ka soo horjeesanaya siyaasadda. waxay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa maamulka. isla markiiba dadkaas TV-ya ajnabiga intii loogu waco baa waxaa la leeyahay kaniisad bay qarxin rabeen sidan bay yeeli rabeen. dadkii ayaga ahaa ee dambiyada waaweyn lagu haystay maalmo kadib waa la soo deynayaa inuu wuxuu siyaasadaysnaa. waxaad ku garanaysaa dhalinyaradii badbaado la baxday ee jigjiga hadda ka hor sameeyey in TV-yada axmaarada laga sii daayay inay kaniisado qarxin rabeen. wiilashiina maanta ay bannaanka joogaan hadday dambiilayaal ahaayeen oo kaniisado qarxin rabeen maxaa loo xukumi waaye? waa su-aal in isweydiiye ah. waxaa kaloon garanayaa wiil uu xiray isla markuu xirana intuu taleefonkii ka qaatay baa waxaa lagu qoray erayo wiilkaas inuu dembi gelaya ka dhigan. naftanya down iyo hala dagaalamo labada ariga facebookiisi lagu qoray wiilkii. waa la xiray muddo xirnaa waa la soo daayay. hadda ka hor baa marka waraysi lagu weydiiyo la yiri maxaa wiilka u xirtay Universal TV. wiilka waxaan u xiray buu yiri dambiyuu sameeyay dambiyuuna lugta la galay. wiilka asaga maanta waa xir ma xirna. waxaad garanaysaan marka dadkan hadda kacayna in dambiyo loo sameyn doono oo la dhihi doono meelay qarxin rabeen waxaan ay sameyn rabeen oo been ah. wax yar kadibna markii xabsi lagu hayo la soo deyn doono. wabillahi tawfiiq.